munaasabaddan sida heerka sare ah loo soo agaasimay ee ka qabsoontay mid ka mid ah howlasha dowladda hoose ee magaaladani Boorama ayaa ahayd mid ay xilka kula kala wareegayeen duqii hore ee magaaladani Maxamed Xuseen Meedhane iyo duqa cusub ee dhawaan la doortay Suleymaan Xasan Xadii. goobjoog waxa ahaa munaasabaddan xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ka mid yahay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Said iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland. sidoo kale waxa goobjoog ahaa waxgaradka aqoonyaanka iyo haldoorka kala duwan ee gobolka Awdal hadalla kala duwan oo goobtaasi laga soo jeediyay. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose Mudane Xasan Yuusuf Riiraash iyo qaar ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha deegaanka Boorama oo uu ka mid ahaa xildhibaan Cabdi Cismaan Dhagaweyne. wada joogno waxaan naga filataana bulshada reer Boorama aanu sheegayaa inta maanta la yeelin doono oo waliba wax ku leeyahay in ka badan inaan qaban doono insha wax qabad u soo noqda meeyarka kolba jooga la shaqeeya xogayaha dawladda hoose la shaqeeya sidaas aanu idin dooranay halkan kamaanay dhicin aad bay farxad noogu tahay xildhibaanada degmada Booramana waxaan leeyahay taa maanta aad bilowdeen waa rajo fiican aad iyo aad baan idinku hambalyeeynaya wada jir baa inoo ballana waxa inoo ballana in aynu iswada cafino oo aynu is saamaxno oo dhismaha aynu u dhaqaaqno haddii la yiraahdo mahad celinayo sidii ay dhinaca uga baydheen ama arinta dhinac bay isaga taagan dadweynuhu xildhibaanada ayuun bay ku koobnayd baan uga nahay inuu soo qabtay wixii ka dhimanna waxaan uga fadhinaa salaabaninta Ilaahay u gaarsiiyo inuu ugu hogaamiyo saan baaqiga u dhameystirno. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maanta haddii aanu kala codaynay iyo haddaan isku codaynay iyo haddaan kala aragti duwanayn iyo haddaan isku aragti ahaynba maanta hal mid ay annagoo aynan hoolka ku soo xirornay annagoo midana aan ka baxayno annagoo midana aan idin shaqayn doonaa haddii Ilaahay guud oo kala sheegaya gobolka ama degmo sideedaba waxay ku tarantaa ama qiimo ku yeelataa ama ay ka horumartaa iskaashi wada jira iyo dhankiisa waxaa hadalka qaatay isla markaana halkaasi khudbad faahfaahin dheer ah ka soo jeediyay duqa xilka wareejinayay Maxamed Xuseen Meedhane isagoo ka marxaati kacay waxbuu cunaydii beenta ahayd ee targetka ahayd ee wada arkayseen in xisaabiye agaasime iyo xogeeye midna loo soo maray ankoodadayada maanta waxa ku jira waxa weeye mid waxa ku jira 128 milyan 299,198 shilin midka akoonka horumarintana waxa ku jira 715 milyan 727,225 shilin khasnada dakhligii shalay ee la xiray waxa ku jira 27 milyan 908,718 isugeyn lacagta maanta banka taalaay waxa weeye 925 milyan 935,221 shilin haddaan bilaabaya anigoo khibrad leh waayo aragnimo la imi golihii isbaranay waa run oo xilliga goluhu wuxuu qabay xanaftii dadku waa la yaabanayeen inaan 3 sano dhowdhow meermeeriyo waxba mad ka awood badan tahay gabagabadii hadalka waxa iskaga kala dambeeyay barasaabka gobolka Awdal wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland iyo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland sideedaba wuxuu waa in la isu tanaasulo waa in la isu hambalyeeyo waana calaf ninna ma samaysan karo ninkii la soo magacaabo iyo ninkii doorasho galaaba kii Ilaahay keenun baa imanaya iyaan kugu dardaaraya dhammaan dadweynaha reer Boorama waxaan leeyahay waa inaad ilaalisaan midnimada iyo walaaltinimada waa in la ilaaliyo waa in wax qabadka lagu muxuu ahaay degmada si uu horumar lahayn waa in laga wada shaqeeyo meeyir keligii wax ma qaban karo gole deegaano wax ma qaban karaan culimada iyo salaadiinta iyo aqoonyahan iyo dhalinyarba waxa la inaga rabaa degma loo tartamaya Booramana maanta meel Soomaaliya
oo dhaantaa inaanay jirin hadday tahay NFD iyo hadday tahay kililka shanaad iyo hadday tahay Somaliland iyo inta qaybooda kale ee Soomaaliya ay ka jirtaan ogtiin meel Boorama ka wanaagsan isku soo wada duubo 3 sano iyo 3 bilood iyo waliba 3 maalmood kadib ayay mar kale xilka isku wareejinayaan labadani mas'uul oo kala ah Maxamed Xuseen Meedhan iyo Saleebaan Xasan Xaddi oo isagu markii labaad dib loogu doortay inuu noqdo duqa degmadani Boorama